indhahaagu waxay wax badan ka sheegi karaan shakhsiyadaada iyo dabeecadaha qofka aad tahay. qof kasta oo dunidan ku nool waa uu jecel yahay inuu wax ka ogaado shakhsiyadiisa. cilmi baarisyo lagu sameeyay dhammaan jirka bani'aadamka waxaa la ogaaday in muuqaalka qofka iyo dabeecadihiisa ay isleeyihiin. horay waxaan uga soo hadalnay dhowr muuqaalo ah oo ku saabsan jirka bani'aadamka. haddaba maanta ayaad wax ka ogaan qaabka indhahaaga iyo shakhsiyada qofka aad tahay. ugu horan fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. haddaba aan u galno. indhuhu waxay u qaybsamaan 6 nooc. aan ka bilowna nooca koowaad, indhaha qaybta sare kor u baxa. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof leh dareen jacayl oo aad u xeel dheer. waxaad aad u jeceshahay inaad hesho qofka aad qalbiga ku hayso. waxaad tahay qof romantic ah. badanaa dadka noocan ah dhanka jacaylka markii loo eego waa kuwo aad ugu badan. 2 indhaha wareegsan. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof indha-indheeyo wax waliba. waxaad aad u jeceshahay in aan waxba lagaa qarin, waxaana tahay qof jecel inuu wax walba ogaado. dadka noocan ah badanaa waa kuwo caqli badan, waxayna aad u necab yihiin in been loo sheego. haddii aad rabto inuu kugu kalsoonaado qofka noocan ah, haddaba been ha u sheegin. 3 indhaha u samaysan qaabka monolid. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof hal abuur leh oo aad ugu dheereeya fikirka. dadka noocan ah badanaa waa kuwo ikhtiraca ama soo saara fikrado cusub. sidoo kale badanaa waa kuwo xishood badan oo afgaaban. dadka ay isku cusub yihiin badanaa lama hadlaan ilaa ay iska bartaan oo isfahmaan mooye. waa kuwo akhlaaq wanaagsan. 4 indhaha qaybta dambe hoos u baxa. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof naxariis badan oo dadka ixtiraama. badanaa dadka noocan ah waa kuwo ay dadku jeclaadaan la dhaqankooda, sababtoo ah badanaa waa kuwo qalbi jilicsan oo aad u furfuran. waxay ku fiican yihiin saaxiibtinimada. 5 indhaha dabacsan. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof isbedel badan oo aad u jecel inuu nolosha horumar ka gaaro. dadka noocan ah waa kuwo badanaa noqda aqoon-yahano ku fiican horumarinta noloshooda. badanaa haddii ay wax ku adkaadaan oo ay fahmi waayaan, kama haraan ilaa ay iska xaliyaan. waa kuwo aad u dhiiran ee aan niyad jabin. 6 almond eyes ama indhaha yicibta. haddii aad leedahay indhaha noocan ah, waxaad tahay qof aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. dadka indhaha noocan leh waa kuwo badanaa ugu quruxda badan dhanka labiska, eegmada iyo socodkaba. sidoo kale badanaa waa kuwo aad u jecel in la ammaano, waana kuwo dhoola cadayn badan. haddana waa kuwo maskax badan oo ka fikira wax walbo ay samaynayaan. ugu dambeyn, haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan ah, like saar. mahadsanid.